tried to do a movie on toilets. The facts came that 54% of Indians don't have toilets in their house. They go outside. markii aan isku dayay inaan filim ka sameeyo musqulaha dalka Hindiya xaqiiqdu waxa ay noqotay in boqolkiiba 54 shacabka reer Hindiya aysan haysan musqulo ku filan banaanada wadooyinka iyo xeebaha ay dadku ku soo xaroodaan marka sidaas si la mid ah ayaa waxaan ogaaday in boqolkiiba 54 dumarka wadanka Hindiya aysan isticmaalin suufka nadaafadda ee dumarka maxaa yeelay ma heli karaan qaarna maba awoodaan inay helaan suufkaasi oo waxay adeegsadaan carrada dambaska iyo maryo wasakh ah waana xaqiiq jirta oo ay tahay inaan wax ka sameeyo sababta kale ee ugu weyn ee filimkan u sameeyay ayaa waxa ay tahay in dalkayga Hindiya aan ka dhigo dal adag dalkaana si uu u noqdo dal adag waa inaad heshaa dumar aad u adag haddii dumarka ay yihiin kuwa adag dalkaagana waxa uu noqonayaa mid adag Akshay Kumar maadaama dadku ay kaga barteen aflaanta dagaalka ku saleysan amaba kuwa jacaylka dadka reer Hindiya iyo waliba caalamka markaad eegto sidee bay uga falceliyeen amaba ay u arkeen filimkan cusub ee Padman the public reaction 90% people are talking good. falcelinta dadweynaha boqolkiiba 90 wanaag ay ka sheegayaan halka boqolkiiba 10 dadka aysan u arkin wax wanaagsan tusaale ahaan barkayda Twitterka waxa ku arkay dad ii soo qoray oo leh Akshay Kumar maxaa kugu dhacay ma waxaad filim ka samaysay caadada dumarka waad caawinsan tahay waxayna ka mid tahay waxyaabaha dadka qaar ay soo diraan aniga wax dhib ah uma arko balse qofkaasi maalin ayuu ogaan doonaa inuu khaldan yahay aad baan ugu faraxsanahay inaan ku iraahdo xaaskayga ayaa soo saartay filimkani caadada gabdhaha dalka Hindiya ceeb ay ka tahay balse mar oo muddo 2 sano gudahood ah waxaan ballan qaadayaa intaas aysan noqon doonin wax ceeb ah waan gartay marka Akshay arrimaha Soomaalida haddii aan kala hadlo Soomaaliya iyo waliba deegaanada kale ee Soomaalidu degan yihiin dadka aad bay u daawadaan aflaantada oo loo turjumay luqadda afka Soomaaliga waxna dadka qaar ay ku yaqaanaan magaca Mr. Bond marka arintaasi maxaad ka ogtahay I didn't know anything about it to be honest. haddii aan si daacad ah kula hadlo runtii ma ogeyn in dadka Soomaalida ay daawadaan aflaantayda marka hore waxaan leeyahay qof walba oo Soomaali ah oo ii dhageysanaya sanad wanaagsan xaaladda Soomaaliya aad baan ugu warhayaa waana ku faraxsanahay in dadka Soomaalida ah ay taageeraan oo ay daawadaan aflaanta Hindiga Soomaalidu waa dad aan aad u ixtiraamo waxaan rajaynayaa inaan imaado Soomaaliya run ahaantii ma ogeyn taageerada iyo hayaan Soomaalida balse waad ku mahadsan tahay inaad ii sheegto waan gartay marka adigu ka shakhsi ahaan maxaad ka aaminsan tahay Soomaaliya iyo dadka Soomaalida ee daawada aflaantada I believe it must be a great looking and a beautiful country. waxaan aaminsanahay in Soomaaliya ay tahay dal muuqaal wanaagsan oo qurux badan fadlan waxaan ka codsanayaa inaad ii soo dirto muuqaallo qurux badan oo ku saabsan Soomaaliya aad baan u jeclaan lahaa inaan arko sawirrada quruxda badan ee Soomaaliya waxaan barta Google ka daawanayay dhammaan sawirrada Soomaaliya ma malaysan kartid sida Soomaaliya u qurux badan tahay marka laga eego xeebaha waxa kaloon aad u xasuustaa in caasimaddu ay tahay Muqdisho dalkaasi waa dal aad u qurux badan If I remember, it was Mogadishu, the capital. How beautiful is your country? Akshay waxyaabo inta badan ee dadku isweydiiyaan waxa kamid ah qatarta ka soo wajahdo markaad sameynayso aflaanta actionka ama aflaanta ku saleysan dagaalka marka arrimahaasi maxaad inooga sheegi kartaa Well, I do a lot of action, but run ahaantii waan sameeyaa aflaan badan oo action ah balse inta aan filimka sameyn waxaan sameeyaa taxadar aad u badan I take a proper care before I do it. ugu dambeyntii marka maxaad jeclaan lahayd inaad u sheegto dadka Soomaalida ee ku dhageysanaya I would like to tell them, first of all, to come and watch Padman because waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan u sheegay inay daawadaan filimka cusub ee Padman maxaa yeelay waa filim u wanaagsan caalamka dalkayga iyo Soomaalida waxa kale oo aan jeclaan lahaa inaan u sheegay in caadada dumarka ay tahay wax dabiici ah waxa kale oo dadka Soomaaliyeed u sheegaya inay ilaaliyaan oo ay ka taxadaraan waalidiintooda gaar ahaan hooyooyinka especially their mother